اختيار بتين أحمد علي عقال أيا صوصعدة كراس حجستا فدقناها كسوكعنا أفر نوعيارا صلاة قضية قلنجة جوكتا انتينا ير متقانان قضية قلنجة واحد لو دورتي قبل الصومالية وقروح بدن الصومرتا موجودين إنك السوق قبلها الصومالية دمات الأياد وقروح بدين هذا قضية قلنجة وحي أهيد إيش ديل دول كياجا نجاو دي مانيني دواق الله يا محد كتقانان بستها يسود محاتي waxaa jiray filan kale oo caan ahaa oo Khadiija Qalanjo ay wax ka sameysay aktaradna ka ahayd dan iyo xarago oo runtii filmaantii soo maray Soomaaliya si aad dad ajnabi xataa ay duubeen inta xasuusteeda maaragtay ay tahay maadaama uu dhahay Cabdinaasir waa igu weyntahay inta ka weynaa waa saaxiib haddii aad xasuusatid burba kugu gudbane مية صبح ينكرتا واتن ماما مريم الله يوفقك والله ليال أحمد علي عقال أنتي سوق عدي وجرنا لكن أنت يرير باربنا هنا وحوجا وشرحنا أحمد علي عقال وحكم ذي هاي فنانين تي كدم بيسي فنانينتي واوينيد انت dhimatay inta noolba Allah uu gargaaro ladadkii dhexe oo iskuulada hayeen Maryan Mursal iyo fanaaniin kale oo fara badan ayuu kamid ahaa runtii riwaayado badan ayuu soo dhigay sida inta aan ka garanayno ama inta uu noo sheegay waraysiyadii aanu ka qaadnay aniga iyo wiish iminka markuu wadanka yimid Ahmed Ali Cigaal riwaayadii ugu horeysay ee uu metelay waxay ahayd Yaxaas Dhagaduub waxa kula jiray fanaaniin aan kala dhicin oo aad u fara badan fankii Soomaaliyeed ayaanu ka waraysanay aanu ku nidhi iminka Axmedow wadanka sidoo uu burburay fankii uu burburay Axmed sidoo niyad iyo qalbi ugu hayo ee fanku dhiigiisa ugu jiro wuxuu noo sheegay in aanu burburin laakiin kulay wax jiraan mar walbana waxa aad haysato uun ayaa ku wanaagsan oo wax ku ah أحمد كما ونيت شبين بربر كستار دعي يدبعتك كستار دعي فانكي حلقي بكودا إن أحمد أيا صاق علي أيا نديك صار دويننا أحمد علي عقال هلا يستاجو هلا سعفيو أحمد صار دو أحمد علي عقال in the house أحمد صار أحمد صار أحمد علي عقال كسودو مقالة لندن ودتك ugu qiimaha iyo qaayaha badan gabdhaha ugu ruuxda badan wiilasha ugu handsome ka ah magaalada looma kala harin dadka meel dheer bay ka yimaadeen magaalada London ma ahan magaalo yar dad ba meel xamar ilaa buula burta ka yimid marka soo dhawow marka fadlan waxaan ka codsanaynaa Axmed ayaa noo bilaabaya fanaaniinta sida isugu xigaan anaga keenayna حبلده وابري أيا إيش السلامية عبد حسن دقة سينا بعقة قديجة قلنجو قمر هروة حرد إسماعيل دنيا فاطمة شحش علي يسر محمود دمانتي لكن صوفوا ليديكم معصم ثانك يو و فنانينتي حبلده وابري ولا ليال مريم يس waxaan isla qaadaynaa raalli idinku naga ahaada caawa hoobaladii waa bari inaan isxasuusanaan rabnaa marka walaalahan ku celinayna Axmed baa noo yimid marka haddaan bilaabaynaa haye walaalaha aan hanuunsano waan idin lahaynaa isunina mahayni halkan waxaad u timaadeen أبي وناكسن أحمدو
dadku aday ku sugayeen annaguna waxaanu nahay min xiisyadaadii caawa adiga habeen kale adiga ayaa marti lagu yahay annaga iyo innaga iyo dadkuba adiga ay marti ku yihiin waxaad halkan dabadaada taagan axmedow fanaaniintii london oo iyaga laftoodu aan muddo kulmin baad kulmisay dartaabay u kulmeen caawa oy isugu yimaadeen marka waxaan aad iyo aad u jecel lahay in aan halkan caawa adiga aanu ku jiibinno annaga iyo dadkuba marka ku soo dhawow london ku soo dhawow waxaanad ogaan doontaa sida aanu u kala dambayno ayaanu kula heesi doonaa caawa sida aanu u kala weynahay ayaanu isugu daysan doonaa magaranaysaa heesaha waa adiga iyo london aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa la yidhi qiso walaba yaab lehe saakatoon haynaa inay baxadhareeb tahay magacaad ka garataa waa axmed cali cigaal sacabka ah fanaaniintu soo kala weyn waa sidaa uu sheegay ayaa loo soo wada gelayaa axmedow maxaad odhanaya intaasoo dadweynaha adduunyada kaa daawanaysa inta fadhida inta ku daawanaysa bal kelmadda ugu wanaagsan id caawan odhanayso maba hadli karayo waxaa rabtaa qalbiga ayaa wax raba aadamiga qalbigaygu wuxuu tegey 70kii 80kii 90kii qalbigaygu marna waa farxayaa marna waa naxayaa mar waa ooyayaa marna wuu qoslayaa hareerahayga fanaaniinta taagan ilaahay unbaa qiimahooda qiyaasi kara waxaan anigu qiimahooda qiyaasi kara maaha ummadaha kale dadkooda soo xambaarsanaa sida dhallaanka hiddaha iyo dhaqankooda iyo luuqadooda waxay ugu fadhiyaan qiimooyin taalooyin bay u dhisaan marka gabdhaha halkan caawa jooga markii la yidhaahdo xarada ismaaciil duniyo saynab cige markii aan xagga kale soo fiiriyo khadiija qalanjo qamar cabdulaahi harawo markii aan xagga fiiriyo asal jacaylkii hore أولاد شعير دلي ومهسنتهين حبين يسعرون عاوة غالية أو روح بدن يحسوس ولا لهاي شعب كرير لندن الصوماليات رقي الدمر با آدي آد بان إذنكم مهد علنيا سيدا قيمها إيغايها له أو آد noogu timaadeen noo sharafteen noo qiimeynaysaan I hope waa rajaynayaa insha Allah inaad fankiina iyo fanaaniintiina kor u qaadaan qolo waliba waxbay leedahay oo ku faantaa anagu idinkaanu ku faanaa shacabkayaga magaca aan sidano idinkaana siiyey darajada aan sidano idinkaana siiyey habeenka maxaan u bixinaa ولا بوحة مركع عاوة الكلام محمد أحمد عاوة رقم مقع موبحية يا شعيكي قرقي أكتيدو فريا أبا محسنتين صاحب يال صعب كرنا وعاوية أمام هاي عاوي أنا وحنا بحيي عقال يعويس كلندن halka waxa jooga nin qaali ah fanaaniinta aqoon-yahanada kamid ah wax bartay aan cod macaan oo aad u jecelahay Cabdi Xasan Dige
ما وضع مقعاب كلا دي واد قرانيسان ما استطاع waayahay axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay annaguna waanu ku faraxsanay inaad nala joogto adaa noo bilaabaya fanaaniinta sharafta iyo qiimaha leh way fadhiisan karaan axmed adiga ayaanu kugu soo wareejinaynaa mikrofoonka dj waan idiin kala baxaynaa laakiin fadlan aynu inagu halkan faaruqin waxaan u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya afkaaga wariyayaasha iyaguna dhallinyarada ah ee halkan iyaguna sida sharafta leh u daadihinaya solo waa mahadsan tahay walaasha deeqa way mahadsan tahay saaxiibka kale aad iyo aad ayaad mahadsan tahay